waxaa lagu qabtay magaalada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xaflad lagu caleema saarayay nabadoonka guud ee beesha Daafaraad Tunni nabadoon Maxamed Xareed Cabdinuur Mad Xareed isagoo bedelay nabadoon Cabdiqaadir Cabdu Xaaji oo xilkaasi horay u hayay caleema saarka nabadoonka beesha Daafaraad Tunni ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono salaadiino malaaqyo iyagoo hambalyo iyo dardaaran isugu daray nabadoonka cusub sidoo kale waxa ay balan qaadeen inay la shaqeyn doonaan nabadoonka cusub ee beesha Daafaraad Tunni nabadoon Mad Xareed waxa waayo sidaadaba waxa waayo adduunyada aad arkaysiin waxay ku socotaa isbedelkaasi kolba qowmiyadii degan meel ama maaragta haddii ilaahay ciddii isla degan meel mar walba inay isbedel samayso waa tan loo baahan yahay sidaa darteed galabta Mad Xareed ayaa waxaa u dooranay beelaha shaqo maasbeel ka mid oo la yiraahdo beesha Daafaraad nabadoonku waxaa soo dooratay beesha kaligeed waxaa soo dooratay beesha Daafaraad soo dooratay laakiin nabadoon wuxuu yahay deegaanka dhan nabadoon ku yahay waa soo dhaweynaa ma sha Allah waa nin ixtiraam macnaha tartada loo soo doortay waa nin aqoon u leh waa nin odayo degan ma sha Allah waa soo dhaweynaa boqolkiiba boqol waan taageersanahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka degmada Baraawe waxaan leenahay Maxamed oo hawsha lagu soo degmada qabso Daafaraad nabadoon muctarif ah buuxo oo ay doorteen ay noo soo waceen walaalkeena Mad Xareed boqolkiiba 14 waxaan ugu hambalyeeynaa Mad Xareed xilka maanta oo qaaday inuu Ilaahay la qaado waxa kale intoodo Mad Xareed u sheegaynaa maadaama oo Daafaraad oo ku doortay maanta waxa tahay suldaan guud oo suldaan ummadda ah ma ku koobnid Daafaraad kuma koobnid maanta haddii lagu doortay oo naloo soo wacay waxaan garab kugu sii haynaa oo kugu taageeraynaa oo kugu garab istaaganahay suldaan Soomaaliyeed inaad tahay isha xun inaad aragtid wixii qaldan inaad aragtid hambaliyo marka waxaan hambalyeeynaa beesha Daafaraad ee maanta meesha isugu timid ummadana isugu yeeftay si ay u doortaan nabadoon cusub waanu hambalyeeynaa waxaan kale u hambalyeeynaa nabadoonka cusub Maxamed Mad Xareed oo loo doortay nabadoonka beesha Daafaraad aad iyo aad baan u soo dhaweynaa arrintaas in badanna waa sugaynay waana soo dhaweeynaa nabadoonka haddii nabadoon loo doorto waa nabadoonka ummadda Soomaaliyeed ayuu noqdaa aan soo dhaweeynaa nabadoonka cusub oo Mad Xareed oo Daafaraad hadda asdoortay ayaa la shaqeeynaa insha Allah waana garbihiisa nahay waana taageerin Daafaraad أنا واحد سو شقي اسمه تور عبدقادر عبدو هذا عبدقادر عبدو هذا لا توري وحا وناكسن أي شرف ولا الكيس إنه سو قرب استهاجو وصل شقيا ما هن يروجيه ما حق شنو وحمان كأبورو ماشي والله عيب نوع عيب وحالنا هاي عبدقادرو هذا إد وديد مخلصي هذا إد مخلينه ولا الكذا لا شقي وأقول شقينا هذا لا شقي ديتو waxa xaqiiqada ina Mad Xareed la shaqeey doono ninka Daafaraad asnoo keenay in la shaqeeyaan Mad Xareed naftiisa hadii la bedelo oo Daafaraad kala askaysa waa la shaqeeyaan dad bal aqoon kullu nabadoonan hay qabiilka soo jeedaan farta hadii noo leeyahay waa raacay dhanka kale nabadoonka cusub ee beesha Daafaraad Tunni ayaa ugu dambeyn muujiyay dareenkiisa isagoo ku baaqay in la garab istaago dadka hanuu baahnaa dadkay baahnaa qofay haddii maani u shisheedo ambar ku hala maysan nagad maanta ambar hala intaan oo magaaga qabiil ma ho qabiil waana Daafaraad laakiin gaar ahaan bukool radiida
ولدي مكدنا نن بكل أي أو حل كمجعة وبراو قداقي مكدنا ملك ديج ولا لنيك هيب تدل ديد وان كان هاي هذا كي صوبي مركا عيدي صارنتا عيداسي إلهي في رجال معها أنا بكل شديد هذل دافرات شديد حلم قادني بكل شديد حلم قاد أنا حل كان تيجانا إقاد عربي عجمة إقاد من أصلان حب بيشن أما تبغى إن عن أحد والمبلغ دياري أي إن عن تجربة نبضون هذاك أي هدي أنا هدا هاينو ميل عن إسبوع والبينو عن سدرير سبب المجرى مرك ما يسيك سوالتني أو نسيك برو قادتني إنه بمركي لا الحول مسكور أنا هرت سفداش كو مركي أوسدين باللاواي سفدين فدقاس كدبي كبت كيس كدبول جلبس السيد سوق يوكسد آير سيسوان أنا يعني كح حر لمسكور الإيل خالمي الإيل قرب قبض أنتي أنا بحب نقاضي دريشة إيدي كالبرداي